محمد جل نوري راد عبد الله نور وحا كدعي داود عبد الله تبال كاسو كبد بربريي غطر 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 جول لاتسو كوحدة كبد عكتير من أفيما شابخ أي عيارتك يا جول أفيما وحو جمال وأصابة صغيرين كلو مقابة جمال هذا بتاع عبد الشكور جمال سوبر جمال محمد علي من كلا صديقي أو جول لاتسو جول المان جول حمزة حسن ورسميل ترى جول كحدة مراد وقت الدنبايا لو شبك كحدة كذا وحكستو الله ديديلو وحكستو الله بدا عيارو وحكستو لسويرارو وحكستو دولان قرباهي سميان عيارتويدو المنايا وقدم بين جول لسي وقتي دي مشهد عيارتا وهجاج يا سلام المنايا جول مركا كور مرتقدي كوادي عيارتا وحنا يكدغن هل يبر كوخدو kubada cagta ee Elman FC Elman ayaa la wareegto gaanka iyadoo kooxdu kubada cagta Elman FC ay markaa doonayeen dib ugu soo laabteen wadadii guusha isbeddelka macalinka kooxda laga bedelay iyo sidoo kale qabareedka kooxda ayaan eegi doonaa in kastoo daqiiqada koowaad ciyaartu ay marayso Jamaal ayaana markaas dhaliyaha goolka kaas oo laacibkan ka mid ah xidigaha kooxda kubada cagta Elman loo kala guuleystay horyaalka markaan fiirino 2017 horyaalka Soomaaliya Yusuf Ali Nuriyo Ali ayaa ku guuleystay isagoo meel fiican markan Maynes maysan noqon mar kale birta oo popo shabaq ayuu gaaray ugu dambeyntii Siaka Kiyeta Amara gool yabre ciyaartu noqotay ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee Jaaliyaashu Elman hoggaanku ayaa geeska Afrika ayaa iska soo saartay waa kan Cabdullaah Yuusuf Xaajo Jonel fantastic goolka labaad ee ciyaarta ay dhaliyeen ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee Jaaliyaashu Coonka waa uu soo tuuray kubadda Maynes mar kale waa kan Maxamed Cusmaan Marshiyo goolkii saddexaad ee ciyaarta ay dhaliyeen ciyaartooyda kooxda Jaaliyaashu Elman goolaha ayuu dhac kaga qaatay Maxamed Cusmaan Marshiyaal oo ciyaartu bedel ku soo galay waxaase lagu bedelay ciraanka goolka hor ama goolka koowaad dhaliyay ee Siaka Keita Amara محمد جل على صلاة عليك وبداسي قطر المان جول يارتو waxay ka dhigan laba gool iyo hal kooxdu kubadda cagta Elman ayaa waxay sameyn doonaan comeback la yaab leh hadii markaa labada gool iska soo gudaan oo ay goolka u sarifaan kan Maxamed Cusmaan Maynes kubaddaas waa laga reebay Onka waa kan Jamaal goolka afraad ee ciyaarta Jamaal oo isna bedel ku soo galay ayaa u afreeyay kooxda kubadda cagta ee geeska Afrika salaan ayuu saaray